wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan gudoomiyeyaasha degmada iyo gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin isla markaasina ay kamid ahaayeen xildhibaano tiro badan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa saaka arooriyadii hore ku waabiristay degmada Bullaxaar oo ka tirsan gobolka Saaxil kuwaas oo u dhaafay tuulada Quraco oo 160 kiiloomitir u jirta magaalada Berbera isla markaasina kala qaybisa xuduudka u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera waftigani oo socdaalkoodu daaranaa xogagaal u noqonshaha iyo wax ka ogaanshaha xaaladda guud ee degmooyinkaasi ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Bullaxaar Maxamuud Qowdhan Ayax waxaana kamid ahaa hadaladiisii halkan waxa weeyaan wadowga cada wadowga cada ee imika la sameeyay waxa weeyaan xuduudii u dhaxaysay مرود الشيخ iyo gobolka Saaxil waxa weeyaan degmada Bullaxaar ayaa kaantaroolkaygu weeyay halkani waa sanduuqa u kooneeya ee gobolka Saaxil halkay dhigato waxa kale oo halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera maanta runtii farxad weyn bay noo tahay halkan maanta aanu joogno oo ah goobtii ugu dambeysay ee Quraco oo ka tirsan degmada Bullaxaar xuduudna u ah oo meesha kala qaybisa gobolka Maroodijeex iyo gobolka Saaxil runtii farxad weyn bay noo tahay maanta sanad guuradii labaad inaanu halkan ku kulanno waxaan maanta halkan u nimid oo ah xuduudkii gobolka Saaxil iyo gobolka Maroodijeex ay ku kala ay xuduudkoodii oo degmada Bullaxaar tuuladii ugu dambeysay Quraco ah waxaan halkan u nimid ka Saleemaan waxaan halkan ku xasuustaa berigii ololihii waa tuuladii ugu dambeysay suuqdii noo yaaleen runtii wala meesha qadiimka ah buuraleyda ah gobolka Saaxil waa gobol xuduudo badan la wadaaga gobolada Jamhuuriyadda Somaliland dhamaantood halkan aynu taaganahay degmada Bullaxaar ee xuduudan Quraco ee aanu wadaagno gobolka Maroodijeex waxaynu ka wadaagnaa gobolka Maroodijeex dhinaca buuraleyda maadaama ay gobolka Saaxil dhinacyo badan aanu xuduudo ka wadaagno xagga badda xagga bariga xagga barigu farabadiyay dhinacani waa dhinacii buuraleyda ee gobolka Maroodijeex aanu wadaagay gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo gobolka aad ugu faraxsanahay dhammaan gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Bullaxaar oo anakan diyaar ugu nahay wax qabadka mugale ee rajeenayo sanadka 2015 insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaanka bacdi runtii farxad weyn bay tahay runtii inaan maanta saacadan aan hadlayo aan taaganahay xadkii u dhaxeeyay labada gobol Saaxil iyo Maroodijeex aad iyo aad bay runtii farxad weyn tahay dhinaca kale aan la leenahay Ceergaabi dhinaca waan yar gaari mar hore salaag iyo dhinaca waan gaaray tog dheer waan gaaray waxa ay dhinaa runtii dhinacan in imaado maanta fursad u siisay inaan markaa imaado gobol kasta ha hadlo qof kasta ha hadlo wasiir ha hadlo xildhibaan ha hadlo halka aan taaganahay waa bartii labada gobol u dhaxaysay waxa weeyaan dadkuna waa isku mid xaggan degan waa dadkii waa walaalo wada wada dhashay laakiin intii gobol ahaan qeydinku ahaa ee awalba jiri jirtay intan weeyaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal degmada Bullaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil